fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeyo hela muuqaaladeena cusub. habeen wanaagsan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. saaxiibayaal meel waliba oo aad caawa caalamka ka joogtaan ku soo dhawaada caawa iyo wararka ugu waaweyn ciyaaraha. waxaanu soo qaadan doonaa wararka ugu dambeeya caawa sportigu laga qorayo. wargeysyada caalamka waxay ka leeyihiin kala iibsiga ciyaartooyga Chelsea oo soo bandhigtay ciyaartoygooda cusub oo aanu caawa ku sheegi doonay arrimo kale oo ku saabsan tartanka Yurub Liga. Arsenal iyo jab weyn uu ku dhacay ciyaaryaha muhiimana waayeysa finalka tartanka Yurub Liga, halka Chelsea ay heshay war farxad leh oo ku saabsan in ciyaaryahan muhiima oo dhaawac ugu maqnaa uu dib u soo noqonayo. waxaanu soo qaadan doonaa xulka Faransiiska oo la magacaabay ciyaartooyga ugu qayb galaya ciyaaraha isreebka Yuroga ee dhawaan bilaaban doona. waxaana yaab leh ciyaartooy waaweyn oo aad u khatar badan xulka Faransiisku laga reebay. Masar iyo Mohamed Salah oo lagu dhawaaqay xulkoodu, Frank de Jong iyo Dilaad waxay rabaan mar kale inay ka wada ciyaaraan kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyo qodobo kale baanu ku soo qaadan doonaa caawa ciyaaraha oo uu qayb ka yahay Ole Gunnar Solskjaer oo qalqaalinaya Paul Pogba si uu ugu siciliyo kooxda Manchester United. Firmino oo soo bogsanaya iyo qodobo kale oo aad muhiimsan ayaan caawa ku soo qaadan doonaa ciyaaraha bal warkii oo faahfaahsan. kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa soo bandhigtay maanta ciyaartoygooda lagu magacaabo Christian Pulisic oo ah nin reer Mareykan ah. waxaanu hore u gadatay ciyaartooygan bishii hore ee January, laakiin inta ka dhamay xilli ciyaareedku waxaa lagu heshiiyey inuu si ciyaaro kooxda kubadda cagta Jarmalka ee Borussia Dortmund. maadaama hadda uu soo dhamaaday horyaalka Jarmalka, ciyaartooyga ayaa yimaaday kooxda Chelsea oo wakay maanta la soo bandhigay. ninkan oo 20 jir ah ayaa la ka garab ciyaari doona xilli ciyaareedkan ciyaartooyga qatarta badan ee gaabka ah ee shaqada u diyaarka N'Golo Kante. Pulisic ayaa xirtay maaliyadda kooxda Chelsea kadib markuu kooxdan ugu soo wareegay lacag oo dhan 58 milyan. marka inanka reer Mareykan waa nin aad u xirfad badan oo aad u khatar badan. kolba haddii ay lumiyaan Chelsea ciyaartooyga Hazard, ragga booska inay buuxiyaan macquulka ah waa un isaga kamid ah. marka ninka u dhashay wadanka Mareykanka ayaa doonaya inuu Chelsea la guuleysto. waka ad arkaysaan Pulisic waka la soo bandhigayo ninka Mareykanka wallahi horta bari waqtigii Dortmund aad u xirfad badnaayay ninka kan. wallahi ninkan waa nin cimaamad leh. waan arki doonaa raggan laakiin la soo gadanayo qaarkoodna falo bay Premier ku noqdaan, qaarkoodna galab bay ku noqdaan. war ha idin wax kaloobo idin ku duceey midkaaye Pulisic ha idin wax kaloobo oo qatar ha idin noqdo. dadku qaar marka la keeno galab bay noqdaan. meeshan Falcao baa la keenay, Di Maria la keenay Premier League, rag badan baa ku fashilmay, rag badan ee marada ugu dhacday. yaa bal wiilkanu ha idin wax kaloobo oo wax kale ba iska noqdaba. isla arrimaha Chelsea, Giroud bay maanta heshiis kala sixdeen oo hal sano ah. 32 jirkan ayaa sii joogi doona kooxda Chelsea. ogow waa ninka ugu xilli ciyaareedka Yurub Liga ugu goolasho badan Chelsea oo 10 gool ayuu Yurub Liga ka dhaliyay xilli ciyaareedkan. haddii uu gool dhaliyo kale wuxuu noqonayaa ninka ugu goolasho badan tartankan Yurub Liga. wuxuu maanta u digay Arsenal uu lahaa wariyaha Arsenal iska jiro yiri micnaa iska kay jira dhiigaygu waa Chelsea oo yiri dhiigaygu waa Chelsea yoobay yaanu iska kay jira finalku baa ka dhacaya yaanu gool idin ka dhalin buu leeyahay. Giroud maanta heshiis hal sano ayuu Chelsea qalinka ugu duugay oo la sii joogi doona kooxdan ilaa wuxuu la joogi doona xilli ciyaareedka dambe oo ah 2019 iyo 2020. isla arrimaha ugu waaweyn caawa ciyaaraha waxaa kamid ah Arsenal iyo jab weyn baa ku dhacay maxaa yeelay ciyaartoygooda Henrik Mkhitaryan ayaa seegi doona finalka ciyaaraha soo aadan ee Yurub Liga ee dhici doona 29 bishan aan ku gudo jirno ee May. Arsenal iyo kooxda kubadda cagta ee Chelsea bana ku ciyaari doona Azerbaijan, gaar ahaan Baku, halka oo finalku lagu ciyaari doono. dagaal u dhaxeeya Armenia oo uu ka soo jeedo ninka Mkhitaryan ah iyo wadanka finalka lagu qabanayo Azerbaijan ayaa jira. dagaalka labada wadan u dhaxeeya dartii ayaan u ciyaari karin ninkan finalka. waxaana Arsenal go'aan ku gaartay inaanu Mkhitaryan la geyn doonin wadanka Azerbaijan, aanu tagi doonin oo aanu la safri doonin oo aanu finalka ciyaari doonin sabab ku aadan ciyaaryahanka oo la ilaalinayo noloshiisa iyo ammaankiisa ayay Arsenal ciyaartooyga ugu tagayaan. Arsenal bana war ka soo saartay arrinka waxay cadeeyeen markay kulan la qaateen ciyaartooyga Henrik Mkhitaryan iyo familkiisa waxaa go'aan lagu gaaray inaanu Henrik Mkhitaryan aanu ciyaarin finalka tartanka Yurub Liga sabab ku aadan dagaal u dhaxeeya wadanka Armenia oo Mkhitaryan ka dhashay iyo wadankan lagu ciyaarayo finalka Azerbaijan. waxa laga baqay hadduu halka tago in wiilku la boobsiya laga yaabayo, yacni meelaha looga kala yimaado. dagaal siyaasadeedku dhib badan yahay. marka waxa anaga geedkeena fiican mooyaane kab siyaasadeed wax fudud ma ahan. hawshan hawl siyaasadeed waa hawl kamal daari ma ahan. geedkan la ariyay la gargaraacayo ma ahan. geedkan wax bala la gama meeshan waa wax laga qaban karayo. kab siyaasadeed weeyaan kabta tan marka Henrik Mkhitaryan ma ciyaari doono finalka Yurub Liga sabab ku aadan wadanka lagu ciyaarayo finalka oo wadankiisu dagaal ka dhaxeeyo. waxa laga yaabaa in dadkaas ay dishaan, sidaas daraadid ma ciyaarayo.
waa warcad oo aan lagu noqonaynba akhbaaraadka kale ugu muhiimsan caawa ciyaaraha waxa iyana kamid ah Madrid waxay warar ku leeyihiin waa ka gaabayeen baryahan la wareegida ciyaartoyga Jovigo tartanku hadda waxa soo gashay kooxda kubadda cagta ee Barcelona akhbaaraad kale weyn waxa kamid ah xulka Faransiiska ayaa ku dhawaaqay liiskiisa ciyaartoyga ugu qayb galaya tartanka loogu soo baxay isreebka tartanka Euro 2020 Deschamps ayaa ku dhawaaqay liiskiisa ciyaartoyga laakiin waxa la yaab leh inuu ka soo tagay ragga qaarna uu dalbaday ciyaartoyga Barcelona ciyaaray England ayaa xulka looga wacay laakiin waxa yaab leh in laga soo tagay ciyaartoyga Alexander Lacazette oo u ciyaara Arsenal waxaana laga doorbiday ninka Safilo ciyaara ee Wassim Ben Yedder ayaa laga doorbiday iyo Olivier Giroud waxaan ognahay in Lacazette uu xilli ciyaareedkan dhaliyay 19 gool 33 gool uu caawiyay tartamada dhan haddana sidaas oo ay tahay looma cimaamadino xulka loogama wicin waxaa jirta xitaa in Emerick Laporte oo City u ciyaara aan lagu soo dirin marna xulka isagoo ah ninka sanadkii hore sanadkan Man City difaaca dhex u ciyaaray muhiimka ah ee Man City difaaca shub ugu dhigaya ee haddana xulka looga wacayn arin kale oo yaab leh ay tahay in Laporte xulka aan looga wacino calay xal ragga xulka looga wacay waxa kamid ah goolhayaasha Alfonso Areola iyo nin la yiraahdo Hugo Lloris iyo waa badin goolhayaashu difaaciyadu waxa kamid ah Denier iyo Lenglet iyo Mendy iyo Bevard iyo nin la yiraahdo Ludo Dobus ayaa laga doorbiday ka war ninka Laporte ah Varane baa lagu daray Umtiti baa lagu daray Kurt Zouma xitaa waa laga doorbiday ninka la yiraahdo Emerick Laporte waa Real Man City ninkii dhamaay Laporte waxa laga doorbiday Zouma iyo mid la yiraahdo Leo Dubo ilaahay amarkii qadka dhexna waa Kante Matuidi Tunga Ndombele Pogba iyo Sissoko weerarkuna waa Ben Yedder oo lagu dalay Coman oo lagu dalay Giroud Griezmann Mbappe iyo Torvin masarna waxay ka qayb gali doontaa ciyaaraha koobka Africa Cup of Nations waxay ku dhawaaqeen 25 kooda ciyaaryahan ee ka qayb galaya ciyaaraha kan Mohamed Salah iyo difaaca kooxda West Brom Albion Ahmed Hagasi ayaa liiskan hogaaminaya masar sanadkan waxay ku group tahay iyagu baana ciyaaru Africa martigelinayo wadamada Zimbabwe Congo iyo Uganda haddaba waa kano Ahmed Al-Shahnawi iyo Mohamed Al-Shahnawi iyo Mohamed Gonesh ayaa goolhayaasha ku jira waa isla shaadeeyaan kuwa kale wadankaanu ya Ahmed Mohamed ayaa ku jiro isagu xataa ciyaaraha qayb ka ah laakiin weerarka Masar waxaan ka xuli karnaa Ahmed Ali iyo Mohamed Salah iyo Marwan Mohsin iyo Ahmed Hassan Kuke Masar waxay khatar badnaan jirtay berigii 2006 iyo 2007 iyo 8 berigaas oo uu Xasan Shaxaate xulkan watay Allah maxay dad ahaayeen Amir Zaki iyo ya Mohamed Abatari iyo Ahmed Hassan oo qadka dhexe ka ciyaarayo Allah Motib iyo Allah maxay rag ahaayeen kuwa ka bariga waa laga yaabanayo Afrika wadamada kale Cameroon iyo Nigeria ciyaaryahan qatar ay u ciyaaraan ayaa meel iska saaray ka waro bariyo ay xukumayeen Masar wadanka Afrika oo dhan iyo koobka habay haysteen laakiin bariyahan waa liitaan hay'ashada waxay haystaan Mohamed Salah oo nin wax kala Frank de Jong iyo Delight waxay wada doonayeen iska garab ciyaarano Delight wuxuu cadeynaya inuu rabo kooxda kubadda cagta Barcelona wiilkan oo Barcelona aysan yahay wiilkan uu Barcelona uu rabaa haddaba ciyaartooyga kooxda Ajax u ciyaaray ay Delight oo ka hadlayay warar ku aadan Barcelona iyo Frank de Jong wuxuu yiri waxaan ogahay wuri Frank de Jong xilli ciyaareedkii la soo dhaafin waa xilli ciyaareed aad u fiican waxaana aad u wanaagsanaan lahayd buuri inaan Frank de Jong aniga isagu aan koox kale ka wada ciyaarno oo warkaas waa dareemaysaa marka warkaas waa cad yahay Frank de Jong uu socday intuu jooga Barcelona u wareegay mar hore marka ninkan Delight ah inuu ka garab ciyaarinka buu doonayay ninkan Barcelona buu rabaa wariya Barcelona kan qaat way dirbiyay wariya inta meelaha taagantiyan lidka kor qaadin wiilka idinku idin rabaa wiilka waa Barcelona aysan wiilkan qabsada wuxuu leeyahay ka warar waxaan rabaa saaxiibkay De Jong inaan mar kale kaga garab ciyaaro koox kale marka waa dareemi kartaa ninkan uu Barcelona rabaa wariya kooxina Ingiriiska waa ninkan idinka ma rabo ninkan Barcelona uu doonaya Ronaldo Koeman oo macalinka xulka kubadda cagta ee Holland oo marna u soo ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa waa ninkii Barcelona la qaaday afar jeer ciyaaraha La Liga isagoo ciyaartooy ee Champions League kii ugu horeyba goolkiisii lagu qaaday ayaa saadalinaya finalka tartanka Del Rey ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta Barcelona kooxda Valencia ninkan ayaa mar xataa soo tababaray kooxda Valencia koobkii ugu dambeeyay 12 sano ka hor qaaday ee Del Rey aha isagaba u qaaday laakiin hadda wuxuu saadalinaya finalka Del Rey wuxuu leeyahay xataa Barcelona laga soo saaray Champions League niyo jabkay Champions League ka soo qaadeen ma saameyn doono leeyahay Barcelona yaani mar walba Barcelona way dagaalami doontaa finalka u dagaalami doontaa yaan la dhihin wuri Barcelona Liverpool ka soo badisay waniya jabsan tahay waa laga badinay waxaas waa been Barcelona ilaa hadda iyaga u cadcad buu leeyahay in ciyaartan badin karaan laakiin 9 daqiiqo markay ciyaarto tahayna waxa laga yaabaa Valencia waa ciyaartooy fiican bay qabtaayo waxa suurtagal in dhibaato ku abuurto haddii laba kulan ay ahaan lahayd ciyaartan laba lug la ciyaari lahaa Barcelona waa cadcadaan lahayd baan dhihi lahaa laakiin wuri haddii hal ciyaar tahay shoog baa iska dhici karo habeenka ka Gamero u ciyaara Valencia wuxuu leeyahay anigu kama cabsanayo kooxda Barcelona meel baan iska saarinay leen arwiilashii Valencia waa idin bootaynayaan reer Barcelona bariyaan tabaryaraad leedu ku arkay tabardariyada ku arkay Barcelona idinka isu keenaya u dulqaata
tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer wuxuu hadda keenay maskax uu ku ceshanayo Paul Pogba ninka Pogba leeyahay ayay waxay aad ugu badan tahay inuu ku biiro kooxda Real Madrid oo hadda Ole Gunnar Solskjaer ayaa doonaya Pogba inuu ku basareeyo ama uu ku qalqaalsado inuu ka dhigo kabtanka kooxda Manchester United ninka Valencia ayaa ahaa Anthony Valencia baa kabtanka kooxdan isaguna kooxdu waa ka baxay heshiiskiisa uu dhacaya Yangina oo xilkan kabtanka hayna waa laga qaadaya Pogba loo wareejinaya waa wadada kaliya uu Solskjaer ku qalqaalin kara leeyahay ninka Pogba marka Pogba waxa lagu qalqaalinayaa baa leeyahay in laga dhigo kabtanka kooxda Manchester United oo Solskjaer sida uu doonaya wuxuu ku qalqaalsanaya inuu yiraahdo wariyaha Pogba war Madrid shaqo iska dhaafay kabtankii kooxda baan ka dhigayay Ahmed Couture baa tahay intaan si joog buu leeyahay farmayna waxa lagu arkay tababarka Liverpool ay ku sameynayso Marbella oo Spain halka oo ay ku baashaalayaan kuna qorxaysanayaan kuna tababaranayaan rajo fiican baa laga qabaa inuu ninkan ciyaari karo kulanka finalka ee Tottenham iyo Liverpool oo farmiyo waa soo dhawaanaya oo dhaawiciisa waa ka soo kabanaya tababaraha xulka Faransiiska wuxuu yiri Deschamps wuxuu leeyahay hadii Pogba uu i weydiisto talo waan siinaya uu ku aadan inuu baxay inuu joogay uu leeyahay yaani hadii uu i weydiisto talo aniga baa siinay talo yaani Pogba waxa la xirnay inuu Madrid ku biiro ama Manchester uu ka tago saas ayay u badan tahay bariyaha kanu tababaraha Deschamps wuxuu leeyahay hadii uu i weydiisto talo igu yimaado yiraahdo war macallin oo halkeen aadaya ama Manchester baa iska jooga ama Real Madrid baan aada aniga baa talo siinay uu leeyahay kolba taliis waxay dhaqan kartaa wariyaha Manchester United ma lahane meeshan wal uu kala orday wariyaha Spain iska aad inuu dhaw waa laga yaabaa inuu yiraahdo waa laga yaabaa wariyaha iska war meeshaad iska joogo meesha madcumad ku leedahay kadib markii aan xalay idin soo gudbiyay warku aadan in Cristiano Ronaldo uu doonayo in Jose Mourinho la keeno kooxda kubadda cagta ee Juventus warka baa jiray oo Ronaldo uu yiri Juventus hal la keeno ninka la yiraahdo Jose Mourinho warka dadka qaar been baa loo maleyn laakiin warka hadda waa jirayo Jose Mourinho ariga ka hadlay Jose Mourinho qudis wuxuu cadeeyay inuu jiro mid kamid ah ciyaaryahanada kooxda kubadda cagta ee Juventus oo isagu la soo xiriir oo yiri wariyaha Mourinho ma Juventus noogu imaadi yiriba Mourinho oo bariyahan falanqeeyo ciyaaraha ayaa Bein Sport u sheegay in mid kamid ah ciyaartooyga Real Madrid aan rahaday Juventus uu soo wacay uu ku yiri wariyaha Mourinho war halka Juventus ma noogu timaadi ku yiri waxaan la fahansan yahay qofkaas inuu qof kale ahayn oo Cristiano Ronaldo uu yahay horta ninka Mourinho haduu Juventus qabto ninkaas Champions League waa keena ninkaas adiga ninkaas nin shaqawa Allegri waa ku daalay geedka Champions League qaadis waa ku daalay Ronaldo wuxuu isleeyahay war hawshan Mourinho la qaban karo Jose Mourinho ba Champions League kula qaadi karo adin record kula dhigi kara in Juventus Champions League ku qaado Mourinho ka caawi karo isleeyahay Mourinho hadda arimaha ka hadlayay ayaa wuxuu cadeeyay horta in Juventus uu qabanayo wali maanu cadeyn laakiin wuxuu cadeeyay inuu jiraan ciyaaryahanno ka tirsan kooxda Juventus waliba mid kamid ah ciyaartooyga Juventus in xiriir fiican uu kala dhaxeeyo uuna ku qancinayo inuu kooxda ku soo biro qof kale lama ahan baa ciyaartooyga kaayo waa ninkaas Mourinho la soo xiriiray waa Ronaldo baa leeyahay Mourinho hadlay wuxuu yiri mid iyaga kamid ah ayaa anigu ila soo xiriiray oo aan leeyahay xiriir weyn wuxuu igu yiri war Mourinho mad xaga daba noo imaadid markaas ba waxaan ku yiri warjo kooxda Juventus ma jecla baan ku yiri markaas wuxuu igu yiri war saddex ciyaarood badi kadib way ku jeclaanayaan marka Mourinho ninka la hadlay waa Ronaldo iyo Mourinho waxa laga yaabaa in ay sanadka dambe ka wada shaqeeyaan kooxda kubadda cagta Juventus walla Mourinho ku ciimaan loo taageerayaasha Juventus markii uu dhagaha ku fureystay isagoo tababara Manchester ah uu yiri wariyaha idima maqlo uu caayay uu yiri war anigu Inter baan joogay markaan saddexda koob aruursanayay koob Italy qaaday Champions League qaaday ee Serie A qaaday halka jirtay Juventus yiri ayman weyd marka waa kolba inuu qaban karayo waa arki doon Allah muxuu ahaa gool ba mid baa ka qurxan oo Andre Townsend ayaa loo doortay ninka dhaliya goolka sanadka ugu fiican ee Premier League waxaanu goolka ku garaacay goolkii company uu ka dhaliyay Leicester iyo kii Hazard uu dhaliyo Andre Townsend ayaa goolka ka dhaliyay kooxda Manchester City markaas uu banaanka boom ka siiyo goolka ayaana noqday goolka sanadka ugu fiican ee Premier League oo ka sara fiicnaaday ama ka sara maray goolasha ay dhaliyeen Hazard iyo company Arsenal iyo kooxda kubadda cagta ee Manchester war fiican ba helayaan bal ciyaartooyga Thomas Partey oo ciyaar Atletico Madrid wuxuu sheegay inuu ka tagayo kooxda kubadda cagta Atletico Madrid Chelsea war fiican ba u soo baxayo N'Golo Kante wuxuu dib ugu soo noqday tababarka ka hor finalka Europe League oo ciyaarayaan labadan kooxood ee Arsenal iyo Chelsea ninkan ayaa dhaawacmay ciyaartii Watford oo hadda laakiin dib u soo noqonaya tababar ayuu la bilaabay kooxda Chelsea warka war u fiican bal ka hor finalka caawaya ciyaarihii waa naga inta